بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين walaalayaal waa dersigeennii 15aad ee kitaabkeena alhadi alwaadix fi dabi can muctaqadi salafi saalix waxaa inoo soo socotay walaalayaal waxyaalihii qolada mushabbihadu ay ku been abuurteen ashaacirada waxaa ka mid ah waxyaalaha ay ku been abuurteen waxay yidhaaheen ashaaciradu waxay qabaan ilaahay qiyaamaha inaan la arkaynin haddaba taasi waa been abuurad walaalayaal maxaa yeelay kutubtii yaryarka ahaa ashaacirada waxaa ku qoran aragtida ilaahay qiyaamaha la arkaayo in la rumeeyo inay tahay wax muqaddasa wa qaala siraajuddiini siraajuddiin wuxuu yidhi fii badi lamaali kitaabkiisa la yidhaha badulamaal wuxuu ku yidhi siraajuddiin yaraahu lmu'minuuna bigayri kayfi wa idraakin wa darbin min mihaali yaraahu ilaahay waxaa arka ayuu yidhi almu'minuuna bigayri kayfin mu'miniintu ilaahay waa arkahayaan kayfiya la'aan wa idraakin hareerayn la'aan ayagoon ilaahay hareerayn karin wa darbin nooc la'aan noocaasoo min mihaalin tusaale ah mu'miniinta wuxuu yidhi siraajuddiin kitaabkiisa badulamaal uu ku yidhi yaraahu ilaahay almu'minuuna mu'miniinta ayaa arkaaya bigayri kayfin ay arkaayaan oo kayfiye iyo qaab ilaahay uu leeyahay ku arki maayaan maxaa ilahay kayfiye mabaleba wa idraakin haleel la'aan ayay ilaahay arkaayaanoo macnaa ma hareeraynayaan shayga makhluuqa markaad arkaydo derbigan markaad arkaydo asaga dhan waa hareeray kartaa aragtied dhinacana inta ka marto aad afartiisa dhinac ka arki kartaa laakiin ilaahay lama hareerayn karo aragti laguma hareerayn karo wa darbin nooc la'aan noocaasoo min mihaalin tusaale ah tusaale gooniyoo ilaahay ay ku arkaayaanna mu'miniintu ma jirto wa qaala abulbarakaat wuxuu yidhi axmed ibnu moxamed abulbarakaat isna wuxuu yidhi ujim akhii biru'yati lilaahi fi jannati alkhuldi bilaa tanaahi warsim go akhii ya akhii walaalkayow biru'yati lilaahi ilaahay aragtidiisa go fii jannati alkhuldi waaritaanka jannadiisa in ilaahay lagu arkaayo goy bilaa tanaahi dhammaad la'aanna ilaahay la arkaayo walaalkayow waxaad goysaa buu yidhi ilaahay in la arkaayo jannada dhexdeedana lagu arkaayo bal u fiirso kutubtii yaryarka ashaacirada dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin oo ay qorahayaan aragtida ilaahay qiyaamaha mu'miniintu ay arkaayaan inay tahay wax muqaddasa alaa tastaxyuuna ma adinkan ka xishoonaynin min dalabati alcilmi cilmiga ardaydiisa ardaydaasoo asikaari yaryar aladiina kuwaasoo hum iyagu midli anigoo kale ah an yafdaxuukum inay idin fadeexeeyaan oo wayatakhiduukum ay idinka samaystaan udxuukatan wax lagu qoslo ma adinkan ka baqaynin ardayda aniga ila mida in ay idin fadeexeeyaan oy idinku jeesjeesaan markaad waxaan soo qorteen wa qaala cuthaymiin wuxuu yidhi fii safxa lambarka 55 wuxuu ku yidhi cinda sharxihi cuthaymiin sharxiisa agtiisa wuxuu yidhi wa xadiida yadxaku allahu ilaa rajulayni yaqtulu axaduhuma alaakhar kilaahumaa yadkhulu aljanna xadiiskaas markuu sharxaayey wuxuu yidhi fa fii haadaa kan waxaa ku sugan uu yidhi kaasoo alxadiidi xadiidka ah ihbaatu dixkiyaa ku sugan uu yidhi qosol oo la sugo lilaahi ilaahay oo qosol loo sugaa ku sugan buu yidhi ilaahay oo qosol loo sugo ayaa xadiiskan ku sugan buu yidhi caza wajal wa huwa qosolkaasna dixkun waa qosol qosolkaasoo xaqiiqiyun waana qosol xaqiiqo ah oo ilaahay qoslaa buu yidhi bal waxaa kutubtooda ku qoran walaalayaal fiiri inna lilah laa xawla walaa quwata ila billah uma qaala bacda dalik hadalkaas ka bacdi cuthaymiin wuxuu yidhi calaa caadati tasaturihim isqarintooda caadadoodii wuxuu ku yidhi ilaa caadadooda waxay tahay inay isqariyaane laakinahu qosolkaasi laa yumaahilu la mid maaha dixka almakhluuqiina makhluuqiinta qosolkooda la mid maahuu yidhi wa hal yanfacuka maku anfaca qowluka hadalkaaga haadaa kana qosolkaasi qosolka makhluuqa la mid maaha muxuu kugu tara bacda an wasafta allaha tacaala ilaahay markaad ku soo tilmaantay ka bacdi bidixki qosol qosolkaasoo alxaqiiqiyi xaqiiqah qosol xaqiiqaa maadaama ilaahay aad ku soo tilmaantay maxay kugu taray makhluuqa la mid maaha qosolkiisu marba haddaad tidhi xaqiiqa u ilahay u qoslaa qosol xaqiiqaa u ilahay u qoslaa marba haddaad tidhi maxay hadalkani kugu tari alaysa haadaa warkani sow maaha ziyaadatan cala nasi naskii oo laga ziyaadiyey oo lagu siyaadiyey maa shay shaygaasoo lam yaadan bihi shayga allahu ilaahay uusan idmin tacaala ku rahay xaqiiqiyun yaad uga dayatay
qosolka inaad ku fasirto inuu xaqiiqo yahay yaad uga dayatay ma kitaabka ilaahay xaqiiqiyun uu ku yaallaa mise sunnada nabigeenna ayuu ku yaallaa sala allahu wasalama calayhi mase ijmaacu salafi saalixaad ka heshay inaad xaqiiqiyun ku darto intaba ma haysid haddaadan intaba haynin dee haddaba baadil ayaad ku socotaahe rabbigaa u toobadkeen subxaanahu wa tacaala waqad qaddamnaa waxaan soo hormarinay ana salafa saalix wa minhum salafu saalix albukhaariyaa ka mid ahe yaquuluuna inay yidhaahaan salafu saalix ina almuraada bidixki muraadka qosolka laga leeyahay alridaa raalli noqosho iyo raxmad waa soo hormarin bukhaari iyo rag badan inay qosolka raxmad iyo ridlo iyo inay ku fasireen allaahuma ilaahayow innaa nas'aluka asalaamata ilaahu nabadgeliyaan ku weydiisanaynaa fii diininaa wa caqiidatina diinteenna iyo caqiidadeenna ilaahu nabadgelyo ayaan kuu weydiisanaynaa wa qaala wuxuu yidhi cuthaymiin fii safxa lambarka wuxuu ku yidhi 38 lambarka 38 wuxuu ku yidhi cuthaymiin maa yaquulu almucaddilu midka tilmaamaha ilaahay inkiraa muxuu leeyahay fii qowlihi tacaala muxuu ku leeyahay wajaa'a rabbuk aljawaab annahu shaaniya yaquulu wuxuu leeyahay ninka sifaadka ilaahay inkirsan jaa'a amru rabbika rabbigaa amarkiisaa yimid cuthaymiin wuxuu la mid dhigay qolada bidcada ah wuxuu ku tilmaamay qolada ta'wiilisa wajaa'a rabbuka oo ku ta'wiilisa jaa'a amru rabbika iyo wixii la mida undur fiiri caafaaka allaahu ilaahay ha ku caafiyee kayfa sidii yusammuuna salafa salafka ay ugu magacaabayaan salafkaasoo asaalixa wanaagsanaa mucaddiliina kuwa sifaadka ilaahay inkiray siday ugu magacaabayaan bal fiiri li'annahu shaani'i qad habata can a'immati salafi a'immada salafka xaggooda waxaa ka sugnaaday wa min baynihim a'immadana waxaa ku dhex jira alimaamu imaamkii imaamkaasoo azaahidu adduunyada iska nacay imaamkaasoo alwariicu xalaal miiradka badnaa imaamu ahli sunnati waljamaaca ahli sunna waljamaaca imaamkooda ahaa axmedu bnu xambala ah imaamkaas waxaa ka sugnaaday ta'wiilu haadihi tan awilitaankeeda taasoo alaayati aayaddaa calaa anna almacnaa uu ku awilay macnuhu inuu yahay wa jaa'a hawaabuhu ilaahay abaalgudkiisiyaa yimid waxaan hore u soo qaadatay walaalkayga wanaagsanow in imaamu axmed uu awilay wa jaa'a rabbuka oo uu ku awilay jaa'a hawaabuhu nimankan mushabbihadana waxay ku leeyihiin qofkii awisha waa bidci mucaddila haddaba a'immadii salafka sow kama dhalanayso in bidca lagu magacaabo maxaa yeelay iyaga uunbaa awilay wa jaa'a rabbuka oo uu ka mid yahay imaamu axmed sanad saxiixana uu uga sugnaaday sida imaamuulbayhaqi uu sheegay wa jaa'a hawaabuhu kamaa sidii qad xaqiiqay calimta aad soo ogaatay cilman aad soo ogaatay cilmigaasoo saabiqan hormaray horay ayaad u soo ogaatay salafu saalix inay qaarkood ta'wiiliyeen jaa'a rabbuka wa jaa'a rabbuka ay awileen fa yaahudu bacdu dalabati ardayda qaarkood way soo qaadanayaan ardaydaasoo almunxarifiina ee gaddoomay oo waddada toosan ka gaddoomay haadihi tan ayay soo qaadanayaan taasoo alkhuraafaati khuraafaadkaa fa yactaqiduunahaa khuraafaadkaasay xaqan xaq inuu yahay u caqiidaynayaan fa yaqacuuna bisababi daalika alakhdi qaadashada khuraafaadka ay soo qaateen sababkeeda waxay ku dhacaan fii awdiyati tashbiihi wa tajsiimi tashbiiha iyo jismi u samaynta ilaahay jismi loo sameeyo togageeda ayay ku dhacaan ardayda yaryarkaa ayaa ku sirma kuna khaldanma markaas ayay waxay qalbiga gashanayaan kuna dhacaayaan waadiga ama toga tajsiimka iyo tashbiiha allaahumma ilaahayow tawafanaa cala sunna ilaahu sunnada nagu oofso walmillati diinta ilaahu nagu oofso diintaasoo alxanafiyati toosnaashada loo nisbeeyey ilaahu diinta toosan iyo sunnada nabiga nagu dil sala allahu wasalama calayhi wa qaala ibnu taymiya fii kitaabihi ibnu taymiya wuxuu kitaabkiisa ku yidhi muwaafaqati sariixi almacquul lisariixi almanquul kitaabka la yidhaha juska 2 lambarka 29 wuxuu ku yidhi bacda an dakara qowla allahi tacaala ilaahay qowlkiisii markuu xusay ka bacdi alraxmaanu cala alcarshi istawaa qowlkaas markuu xusay wuxuu yidhi fa haadaa qowlkan ilaahay kulluhu qowlkan ilaahay kulligiis iyo maa miladii kii ashbahahu qowlkan ilaahay shabbaha
shawaahiddu waa waxyaalo markhaatiyaala wa dalaa'ilu waa waxyaalo tusinaaya tusaalooyin cala alxaddi inuu ilaahay soohdin leeyahay ayay tusaalooyin u yihiin buu yidhi ilaahay inay soohdin leeyahay ayaa qur-aanka laga fahmi buu yidhi ibnu taymiya waman lam yactarif bihi bilxaddi soohdintaas inuu ilaahay soohdin leeyahay qofkaan qirin faqad kafara waa gaaloobay bitansiili illaahi ilaahay qur-aankii uu soo dejiyey ayuu ku gaaloobay wajaxada aayaati illaahi aayadihii ilaahayna waa diiday qofkaan qirin buu yidhi ilaahay inuu soohdin leeyahay qofkaasi aayadihii ilaahay ayuu ku gaaloobay haddaba walaalayaal sow hadalkaa kama laasimayso kama dhalanayso ibnu taymiya wixii ka horreeyey oo dhan inuu ku gaalnimo xugmiyey sababtoo ah wax isaga ka horreeyey salafu saalix sheegay ilaahay inuu xad leeyahay soohdin leeyahay ma jiro wa qaala wuxuu yidhi ibnu taymiya fi ljuz'i athaani juska labaad wuxuu ku yidhi safxada lambarka shanaad qaala cuhmaan bnu saciidin wa hayruhu cuhmaan bnu saciid iyo hayrkiisa waxay yidhaaheen ina alxarakata dhaqdhaqaaq min lawaasimi alxayaati nolosha waxyaalaha laasima ayay ka mid yihiin buu yidhi xarakada ilaahay waa dhaqdhaqaaqaahuu yidhi maxaa yeelay dhaqdhaqaaq iyo noloshu waa islaasimaan buu yidhi fa kullu xayin qof kastoo nool mutaxarikun waa dhaqdhaqaaqaa ilaahayna waa nool yahay marka inuu dhaqdhaqaaqo maxaad ku diidi buu yidhi ibnu taymiya wajcaluuna fii haadaa taxarugan oo la diido dhaqdhaqaaqa oo la diidana culummadu waxay ka dhigeen min aqwaaliiljahmiyati jahmiyada hadalladeeda ayay ka mid dhigeen jahmiyadaasoo nufaati sifaati tilmaamaha ilaahay diidan aladiina jahmiyadaasoo itafaqa asalafu wala'immatu salafka iyo a'immadu ay isku waafaqeen calaa tadliilihim ku baadi xugmintooda iyo wa tabdiicihim bidca inay yihiin lagu xugmiyo ay isku waafaqeen buu yidhi bal waxaan walaalayaal arka ibnu taymiya wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay sifaadkiisa waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaq qofkaan dhaqdhaqaaqaas qirinna waa jahmi waa bidciyuu leeyahy war adeerow xaggee erayga dhaqdhaqaaqa ah ma ilaahayaa isku sifeeyey ma nebi maxamedaa ku sifeeyey sala allahu wasalam calayhi war waxaan kitaabka iyo sunnada ku oolin sidee ugu dhiiratay inaad ilaahay ku tilmaanto allaahumma innaa nas'aluka salaama intahaa wuu dhammaaday qaala alimaamu imaamkii wuxuu yidhi albayhaqiyu naqlan naaqilan xaaluu soo guuriyey can ilkhadaabiyi imaamu albayhaqi oo khadaabi ka soo guuriyey ayaa wuxuu yidhi fii macaalimi sunani kitaabkiisa la yidhaha macaalimu sunan ayaa wuxuu ku yidhi macaalimu sunan kitaabka la yidhaha ayuu wuxuu ku yidhi qad zalla bacdu shuyuukhi ahlilxadiis ahlulxadiiska sheekhyaalkooda qaarkood way simbirrixdeen sheekhyaalkaasoo miman duul ka mida yurjacu dib loogu laabto ilaa macrifati oqoontiisa bilxadiidi waarijaal xadiiska iyo ragga ruwaaddaa uu oqoon u leeyahay wuxuu yidhi bayhaqi isagoo khadaabi ka soo xirtay mashaayikhda qaar ka mida ayaa simbirrixdeen oo ka mid a ragga xadiiska iyo rijaasha dib loogu laabto oqoonta ay u leeyihiin fa qaala wuxuu yidhi bacdu shuyuukhi in qaala qaa'ilun mid dhahaya hadduu yidhaa kayfa yanzilu rabbunaa rabbigeen soo u soo degaa hadduu qofna su'aala buu yidhi rabbigeen see u soo degaa lisamaa'i samada sidee uga soo degaa qiila waxaa la leeyahay yanzilu ilaahay waa soo degaa kayfa yashaa'u suu doonuu ilaahay u soo degaaha la leeyahay fa in qaala hadduu yidhaha qofku hal yataxarraku ilaahay ma dhaqdhaqaaqaa idaa nasala markuu soo degaayo qaala wuxuu yidhi in shaa'a hadduu doono yataxarraku waa dhaqdhaqaaqaa wa in shaa'a hadduu doonana lam yataxarrak ma dhaqdhaqaaqaayo balaga waxa kutubtaas ku qoran walaalayaal wa haadaa hadalkan ayuu yidhi bayhaqi khada'un waa gefkaasoo faaxishun foolxun gefkaasoo cadiimun weyn wallaahu tacaala ilaahay laa yuusafu bilxaraka ilaahay dhaqdhaqaaq laguma sifay karo li'anna alxarakata wasukuuna dhaqdhaqaaqa iyo xasilloonidu yatacaaqabaani way isla soo cirbiyaan fii mawdicin boos ayay iskula soo cirbiyaan booskaasoo waaxidin keligiisa dhaqdhaqaaqa iyo xasilloonida
hal meel ayaa lagu sifeeyaa labadoodaba wa innamaa yajuusu waxaa bannaan an yuusafa bilxarakati dhaqdhaqaaq man qof in lagu sifeeyo qofkaas oo yajuusu bannaan an yuusafa qofka in lagu sifeeyo bisukuuni xasillooni qofkii xasillooni lagu sifay karo ayaa dhaqdhaqaaqna lagu sifay karaa dhaqdhaqaaqna qofkaasaa lagu sifay karaa wa kilaahumaa xarakada iyo sukuunka labadooda mid walbee ka midana min acraadilxadadi xadadka waxyaalaha soo darriyey ka mid yihiin waa waxyaalaha muxdathaadka oo la soo darrisiiyey kuwa ku soo darriyey ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa iyo xasilloonida wa awsaa filmakhluuqiina makhluuqiinta tilmaamahooday ka mid yihiin wallaahu tabaaraka wa tacaala mutacaalin canhumaa waa ka sarreeyaa xaraka dhaqdhaqaaq iyo xasillooni labadaba ilaahay laguma tilmaami karo laakiin laysa ka midlihi ilaahay maxaa yeelay buu yidhi laysa ka midlihi ilaahay wax la mida shay-un shay ma ahaanin falow jaraa haadaakani hadduu isaga socan lahay buu yidhi bayhaqi kaasoo ah shaykhu sheekha calaa dariiqati salafi waddadii salafka hadduu isaga socan lahaa salafkaasoo ah saalixi wanaagsan oo walam yudkhil nafsahu naftiisa uusan dhex geli lahayn fii maa shaygaasoo laa yacniihi asaga aan anfacaynin lam yakhruj bihi sheekha alqowlu hadalku lama baxeen ilaa midli haadaa kan oo kale hadalku ulama soo baxeen kaasoo alkhada'i gefkaasoo alfaaxishi foosha xun hadduu waddadii salafka sheekhan isaga socan lahaa gefkan oo kale kuma dhaceen intahaa waxaa dhammaaday maa hadalkaasoo naqaltuu aan ka soo guuriyey can alxaafidi albayhaqi xaafid albayhaqi hadalkii aan ka soo guuriyey ayaa halkaas ku dhammaaday fi alasmaa'i waasifaat alasmaa' wasifaat dhexdiisaan aan uga soo guuriyey safxada lambarka 419 waalkhadaabiyu khadaabi alladii khadaabigaasoo naqala soo guuriyey naqala albayhaqiyu imaamulbayhaqi hu kalaamkan naqala albayhaqiyu bayhaqi uu soo guuriyey canhu khadaabigaas haadaa kan uu ka soo guuriyey kaasoo alkalaama hadalkaa alladii hadalkaasoo huwa isaguba saaciqatun biriq ku ah calaa ru'uusilmubtadicati bidcada madaxyaalkooda biriq ku ah hadalkan oo biriq ku ah bidcada madaxooda oo bayhaqi uu khadaabiga ka soo guuriyey alladiina bidcadaasoo yuhbituuna lilaahi alxaraka ilaahay dhaqdhaqaaq u sugaaya huwa khadaabigaas oo hadalka laga soo guuriyey abuu sulaymaana waa abuu sulaymaan axmed ibnu ibraahiima alkhadaabiyu ee khadaabi loo nisbeeyey lahu khadaabiga mansilatun derajo ayuu leeyahay derajadaasoo kabiiratun weyn fii culuumi alxadiis culumta xadiiskuu derajo ku leeyahay waalfiqhi fiqhiguu derajo ku leeyahay wa macrifati alghariibi ghariibka aqoontiisuu derajo ku leeyahay walahu khadaabi wuxuu leeyahay sharxun sharxaasoo cala albukhaariy bukhaarigana wuu sharxay wa sunani abi daawuuda sunanka abi daawuudna sharax ayuu ku leeyahay wa huwa khadaabi min shuyuukhi alxaakimi shuyuukhda xaakim ayuu ka mid yahay tuwufiya khadaabi waxaa la hoofsaday sana 388 ayuu khadaabi geeriyooday bukhaariga ragga sharxay ayuu ka mid yahay haddaba marka walaalayaal kaas waxaad ka garateen kutubtooda inay ku taallo waxyaalo qofka muuminka ah uu la amakaago maxaa yeelay xarakada iyo dhaqdhaqaaqa xaggee laga soo qaatay yaase ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala wa qaala alxaafid wuxuu yidhi ibnu xajar alcasqalaani fi lfatxi kitaabkiisa fatxulbaariga wuxuu ku yidhi juska 13 lambarka 410 cinda sharxihi ibnu xajar sharxiisa agtiisa wuxuu ku yidhi xadiida kaana allaahu walaa shay'a macahu ilaahay waa ahaaday walaa shay'a macahu shay ilaahay micigiisa ahaadana ma jiro xadiiskaas markuu sharxaayey ibnu xajar wuxuu yidhi wa huwa xadiiskan buu yidhi asraxu waa mid ku caddaansho badan fi raddiga ayuu ku caddaan badan yahay buu yidhi calaa man qof la radiyo qofkaasoo ahbata xawaadida waxyaalo soo darriyey sugay xawaadistaasoo laa awala lahaa bilow aysan u sugnaan wuxuu yidhi ibnu xajar xadiiskan wuxuu radinaa qolada qabta xawaadis oo meelay ka soo bilaabanto aan jirin ayaa adduunka laga helayay dhaheen
wa hiya mas'aladaas min mustashnaci almasaa'ili masaa'ilka la fool xumaystay ka mid tahay buu yidhi ibnu xajar masaa'ilkaasoo almansuubati libni taymiya ibnu taymiya loo nisbeeyo masaa'ilka ibnu taymiya loo nisbeeyo waxyaalaha aad ugu foosha xunay ka mid tahay buu yidhi maxaa yeelay ibnu taymiya wuxuu qabaa caalamkan waxaa jira xawaadis oo meelay ka soo bilowday aysan jirinin maxaa yeelay wuxuu leeyahay makhluuq kasta waxbaa ka sii horreeyey cirka waxbaa ka sii horreeyey dhulka waxbaa ka sii horreeyey carshiga waxbaa ka sii horreeyey ilaa markaas laga gaaro makhluuq weligiisba qadiim ahaa jiray laga gaaro weligiisba qadiim ahaa jiray aa meesha ka soo baxaysuu leeyahy dee makhluuq qadiim ahaa jiray ayaa meesha ka soo bixi waxaa diidaaya oo radinaaya kaana allah walaa shay'a macahu ilaahay waa jiri jiray wax ilaahay la jirana ma jiri jirin walaqad tacajaba waxaa yaabay bacdun ayaa yaabay qaarkaasoo minhum iyaga ka mida qolada mubtadicada min tilka taas ayay la yaabeen taasoo almakhaazi ee hoogyaalka ah qolo iyaga ka mid ahaa hooggaas la yaabay kutubtooda ku qoran waalkhuraafaati khuraafaadkaasay qaarkood la yaabeen fa radda bacduhum qaarkooda calaa bacdin qaarka kala radiyey ayagiyaa is radiyey marka oo dhaheen beriyaan ka nahay kutubtaas waxa qoraaya ma idinku waafaqsanin ayagiyaa is radiyey maxaa yeelay yukharibuuna buyuutahum guryahooday biaydiihim gacmahooda ku kharribaayaan wa aydi almu'miniin mu'miniinta gacmahoodana waa ku kharribaan guryahay dhisteen ayagaa dumiyey faactabiruu cibro qaata yaa ulil absaar caqliyaalka kuwa u saaxiibka ahow bal waxaan ku cibro qaata fa fii kitaabi albishaarati walitxaaf albishaara walitxaaf kitaabka la yidhaha waxaa ku sugnaa kitaabkaasoo lilcallaamati cilmi badanaha u sugnaaday xasan ibni caliyin assaqaaf safxada lambarka 10aad waxaa ku sugnaa qaala alalbaaniyu fii saxiixatihi albaani ayaa saxiixiisa wuxuu ku yidhi juska koowaad lambarka 280 can xadiidi ina awala shayin shaygii ugu horreeyey shaygaasoo khalaqahu allaahu ilaahay uu abuuray alqalamu waa qalankii xadiiskaas markuu ka hadlayay albaani wuxuu yidhi maa hadal wuu yidhi hadalkaasoo nasuhu caddayntiisu ay tahay wa fiihi xadiiskan waxaa ku sugan buu yidhi raddun raddin calaa man qof la radiyo qofkaasoo yaquulu dhahaya bixawaadisa dhacdooyin xawaadistaasoo laa awala lahaa bilow aan lahayn xadiiskan wuxuu raddi ku yahay buu yidhi albaani dadka qaba waxaa jira makhluuqaad meelay ka soo bilaabanto aan jirin wa annahu dhahaya sha'niye maa min makhluuqin makhluuq ma jiro ilaa wa masbuuqun waxaa lagala hormaray bimakhluuqin makhluuq kale makhluuqaasoo qablahu asaga ka horreeyey qolada dhahaydu xadiiskan radinaya u yidhi albaani albaanigiiya xataa la yaabay qolada mubtadicada radinaya oo wuxuu leeyahay albaani xadiiskan wuxuu raddi ku yahay qolada dhahayda makhluuq walba makhluuqaa ka sii horreeyey wahaakada alxukmu saasuu xukunku ahday mid walba midaa ka sii horreeyey ilaa maa makhluuq laga gaaro makhluuqaasoo laa bidaayata bilow lahu asaga uusan u sugnaan ilaa laga gaaro makhluuq meeluu ka soo bilowda aan jirin walaqad adaala ibnu taymiya waa ku dheeraaday buu yidhi fii raddihi raddintiisa cala alfalaasifati falaasifada markuu raddinaayey waa ku dheeraaday buu yidhi ibnu taymiya muxaawilan xaal ibnu taymiya uu isku dayey ihbaata xawaadis inuu sugo ayuu isku dayey xawaadistaasoo laa awala lahaa awal aan lahayn wa kam badanaa kunnaan ahayn nawaddu inaan jecelnahay an laa yelija ibnu taymiya inuusan gelin haadaa kan almawlija gelidda ah wuxuu yidhi albaani in badan waxaan jeclayn waxyaalahan oo kale inuusan ku hadlin ibnu taymiya oo uu iska daayo intahaa wa qaala alalbaaniyu wuxuu ku yidhi fii muqaddamati rafci alastaar muqaddamadiisa wuxuu ku yidhi walxaal huwa albaani yaruddu uu radinaayo cala ibni taymiya ibnu taymiya isagoo radinaaya ayuu wuxuu yidhi albaani fii qowlihi ibnu taymiye qowlkiisana ku radinaaya bifanaa'i naari naarta baaba'eeda uu ibnu taymiya yidhi safxada 25aad wuxuu ku yidhi albaani fa kayfa sideebaa yaquulu ibnu taymiya siduu u dhihi karaa walow qudira cadaab haddii la qadari lahay
cadaabkaasoo laa aakhira lahu aakhir uusan u sugnaanin haddii la qadari lahay lam yakun hunaaka halkaas raxmatun raxmad ma ahaanin albatatan go'naanba ibnu taymiya wuxuu yidhi haddii la dhihi lahay gaaladu cadaabka weligood waa ku waarayaan aw naxariista ilaahay buu yidhi ilaahayba raxiimaba noqonayuu yidhi albaaniyaa radiyeyoo wuxuu yidhi fa kaana raxmata waxaad mooddaa buu yidhi raxmaddaasoo cindahu ibnu taymiya agtiisa ahaatay laa tataxaqaqu inaysan xaqiiqo noqon karin ilaa bishumuulihaa raxmadda kulminteeda maahane alkufaara gaalada inay kulmido maahane kufaartaasoo almucaanidiina ee madax adag kufaartaasoo addaaqiina ee qooqay buu yidhi albaani wuxuu yidhi oo naxariista ibnu taymiya ma wuxuu u yaqaan in gaalada loo naxariisto qooqay waxaad mooddaa naxariista inuu u fahamsan yahay buu yidhi ibnu taymiya gaalo in loo naxariisto maahana inaan naxariis kale la helay bal fiirisu u radinaayo alaysa haada ayuu yidhi hadalkaani sow ma aha min akbari aladillati adillada kuwa ugu waaweyn calaa khada'i ibni taymiya gefka ibnu taymiyana tusinaaya wa bucdihi ibnu taymiye fogaashadii tusinaaya huwa isaga iyo waman duul ay fogaadeen duulkaasoo tabicahu ibnu taymiye raacay cani sawaabi waddada toosan ay ka fogaadeen fii haadihi tanna ay waddada toosan uga fogaadeen taasoo almas'alati masaladaasoo alkhadiirati khatarta badan sow wuxuu yidhi tani deliil uma aha ibnu taymiye iyo dadkii raacay inay ka fogaadeen waddada toosan mas'aladan oo halisteeda leh khatarteeda leh maxaa yeelay mas'aladan jahmiyadaa qabta jahmiyadaa waxay qabaan fanaa'u naartu inay baaba'ayso soo marka meeshaas kama imanayso ibnu taymiya inuu jahmiyada ku waafaqay fanaa'u naar waxaa ka ashahaatay oo la yaabay albaani oo yidhi bal fiiri sidii ibnu taymiya uu sida toosan uu uga leexday kana fogaaday mas'aladan halisteeda leh daba halkaas walaalayaal waxaa inoogu dhammaaday darsigeennii 15 ee kitaabkeennii alhadyu alwaadix fi اdabbi can muctaqadi salafi saalix wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh